والله بالله تلا go'aanka waxa weey in la dilo farmaajo inuu iska bixin madaxtooyada haddii sadaba bari uga guuri waayo wixii ku dhaca asaga mas'uuliyadda qaadaya anaga hawiyaano lama haysto waa la dilaynaa meedkiisa aan la saarin madaxdiisa ku dhacayna toddoba wiil buu naga dilay hadda koox Cabdi Cashir ku dilay oo meedkiisa la yahay ayada ugu aragna meedkiisa la arki maayo waa gumeynaa marka dilay meedkiisa wayna helnaa beesha marixaan oo kala socodkeeda iyo odayaasheeda jawaab degdeg ah ka helnaa oo afar maajo in qaban kara in qaban waayaan haddii labaas mid aan ka weyno xoog baad iskaga saarayna oo daahiman Ameerika saaray maxaa siyaad baraxman ka saaray cid kastoo soo gurisa ka saaray hawiye beesha hawiye waa cudud xamar degan cidna uga habaysamayso 1 milyan qori haystaan ciidanka 1 milyan qori kuwa ku filayeen ka saaraan Greek wax ma jiray shay toosana madaxweynaha waa uu talahay wallahi in fiyo shay toosana ka bacd waxa looga inuu waalay farmaajo waxa misay inuu waa inuu yahay way dhaqaatiirtu beesha caalamka inay baaraan dhaqaatiir soo diraan weey ramayna ka hadla warqadii xalay uu soo saaray madaxweynaha kumeel gaarka ama madaxweynaha hore Soomaaliya maxamed Abdullaahi Farmaajo warqadaas warqad sharciya ma ahayn mana aaminsanin fiyo inuu qoro warqadaas waxa la nin waalan walaalkiisa oo fiyo madaxweynuhu Farmaajo waa nin waalan dadka Soomaaliyeed baa la rabaa inay gacanta midigta iyo gacanta bidix labada qabtaan labada gacmood waa ninka shalay taraasulo yiri doorashada ra'iisul wasaaraha wadaya maanta waa ka qaaday shalay waa la maanta waalaya waxaan ka codsanayaa golaha musharaxiinta guddigii badbaado qaran ra'iisul wasaaraha Soomaaliya taliyaasha ciidamada dhammaan waxaan ka codsanaynaa in gacan wada shir ku qabtaan ninkan madaxtooyada laga saaro nin waalan weey nin xil qaadi kara maaha inuu dagaal sokeeyo ka shaqeynaya dadka isku laayo ku shaqeynaya mana ka yeelin warqadaas oo qoray mana aqoonsanin waxaan kaloo rabaa inaan halka uga hadlo Soomaaliya shalay ayadoo la joogo beesha caalamka iyo musharaxiinta kulli joogaan buu warqad qoro u leeyahay waxa ku wareejiyay ra'iisul wasaaraha inuu doorashooyinka qabto sagaal bilood laga doorashada socota waxa laga wadi waayay laga socodsiin waayay isagu ahaa hortaagnaa markasta ninka hortaagan doorashada sida ula socono oo bay dhamasho ku qabto xagga shir ku qabto markii la jiraba hadda wuxuu marayaa safaray iyo kolonajis iyo dadka laayay iyo intii dambiilaha laga dhigay xildhibaano dagaal buu abaabulaya raalina kama ahin inuu dalka dagaal ka rido mana ka yeelayno waxaan leenahay ninkaas intii fiyo gacanta qabato Soomaali maanta dagaal ma baahna hadii la qabadiido waa la iska celinaya dadka xamar musharaxiinta iyo golaha badbaadinta iyo siyaasiyiinta hawiye iyo odayaasha dhaqanka waxaan u baaqaynaa gacan biray ku qabtaan oo waliba ay maxkamad la geeyo la togto marka ugu dambaysa farmaajo madaxweynaha hore oo tasuurkii u baabi'ay oo qalad ka galay dalka Soomaaliya oo shalay subax oo soo madaxweynaha jaanada dadka siinayeen ma yarka waalaya oo dadka inuu ku laayo wax suurtagal ma aha sharciina ma aha madaxweynaha Soomaaliya ma aha waa nin shakhsi oo waalan ninka shakhsiga waalan waa iska qabtaa dadka waxa maqli jiray meesha la yiraahdo Greek waxa maqli jiray shay toosana madaxweynaha waa uu talahay wallahi in fiyo shay toosana ka bacd waxa looga inuu waalay farmaajo waxa misay inuu waa inuu yahay way dhaqaatiirtu beesha caalamka inay baaraan dhaqaatiir soo diraan weey maskaxiyan in la baaro dhimirkiisa la baaro waxaan rabaa halkaan tala ka sii ra'iisul wasaare shalay iyadoo madaxtooyada laga xoreeyay adaa badbaadiyay soo ragay oo yiri gadaasha iyo gacan loo taagan maanta saga ku haysto xilka qaadaya waxaan ka codsanayaa baaq degdeg ah oo dadka Soomaaliya ku hadlaysid oo ninka doorashada diidana sheegaysid ila soo jeesid si degdeg ah oo sheegto tirad maxamed Abdullaahi Farmaajo doorashada ka wadi lahay dadku iyaga iska saar iska qabanaya laba baahna ciidan shay min qabta dadku hawiye iyo Soomaali wixii doorashooyinka musharaxiinta ah waxaan ka rabaa baaqaas inaan marwada u faa'iisto madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor madaxweynaha Farmaajo wuxuu gobolka Gadaa iska leh nin ay xukumo male haddii ra'iisul wasaaruhu galmudug kula yeelan waayo talada galmudug wax ka siin weydid haddii dad Soomaali galmudug madaxweynaha ka noqon meesaan labadiina waa isku burburaysan waxaan rabnaa inaad tixgelisid madaxweynaha galmudug oo madaxweynaha oo sharafta leh inuu tixgeliyo ra'iisul wasaaraha oo ah nin walaalkiisa ra'iisul wasaaraha dalkana ah una ogolaado talada doorashooyinka galmudug inuu wax ku yeesho codsigaas madaxweynaha soo jeedina madaxweyne anagoo ku taageersan shacabka galmudug ah waxaan ka codsanaynaa ra'iisul wasaaraha oo reer galmudug taladiisa ila qaaday hawiye dad hadda xoog lagu haysan kara ma hadii xoog lagu haysan Ameerika haysan lahayd adeegkiisa maxaa siyaad baraysan lahaa waxaysan lahaa xasan daahir xukumi lahaa hadii hawiye xoog lagu xukumayo muqdisho gacanta ku hayay muqdisho waxay uga shahay dowladnimo sharaf bay uga shahay dowladnimo rabtaa madaxweyne rasmi rabtaa doo sharci jooga qaynuun bay rabtaa sharci lagu maamulay rabaan ma nin aan xilkiisa maadin ma xukumi karo halkaan sare waxaan u hayay ra'iisul wasaaraha oo aan eedaas haysanaa ra'iisul wasaare cadee mowqifkaaga aad ka aaminsan tahay madaxweynaha Soomaaliya haddii aad cadayn wixii hawiye ku dhaca ama Soomaali ku dhaca ama xamar ku dhaca adaa mas'uuliyadda qaadaya beesha daarood waliba ugaaska mareexan beesha daaroodna ugaaska mareexan
dad derisaan nahay dad wada dhashay baan nahay dad deegaan ka dhexyaan nahay dadka in la isku diro lama baahna ugaas ninkaas naga qabo nin fiyow maaha hadda tol kaloo saakaan ku dacwanina ma naqaan ugaaskii marixaan baa jooga ugaas ninkaas naga qabo adaa ugaas adoo ah dadka yaan la isku dirin haddii 24 saac soo socdaan jawaab ka weyno beeshu ka dhashay haddaan jawaab ka weyno isaga wixii xamar ka dhacay soo deesaa qaadaya annaga hawiye haddaan nahay muqdisho xoog baa uga saarnay maxaan siyaad bare haddii hawiyana maxaan siyaad bare xoog baa uga saarnay ameerika xoog baa uga saarnay dalka annaga askare haddii aan hawiyanahay waxaan ku baaqayaa beesha beelweynta hawiye u baaqayaa waa inaan helnaa beesha marixaan oo ka dhashay ugaaskeeda iyo odayaasheeduna jawaab degdeg inaan ka helnaa oo 4 maajo inay qaban karaan inay qaban waayaan haddii labaas mid aan ka weyno xoog baa iskaga saaraynaa u daahimayna ameerikaa saarnay maxaan siyaad bare xamar ka saarnay cid kastoo soo guraysaa ka saarnay hawiyaa saaray hawiye beesha hawiye waa cududda xamar degan cidna uga habaysan mayso 1 milyan oo qori bay haystaan ciidanka 1 milyan qorina kuwa ku filan inay ka saaraan wallaahi billaahi talaa go'aanka hawiye qaatay waxa weeye in la dilo farmaajo inuu iska bixin madaxtooyada haddii 7 bari uga guuri waayo wixii ku dhaca isagaa mas-uuliyadda qaadaya annaga hawiyaana lama haysto shalaan ugu eedayseen maxaad siyaad barraa naga taabateen marixaanow war ugaasow war shalaan eedii horena qabni war maanta gacmaha qabta laga saara ninkan war ninkan cishada haddaa cishan weydaan wallaahi waan dhaartay nin odayo dhaartaanay wallaahi oo billaahi oo tallaahi waa la dilaynaa meedkiisa anaan la saarin madaxiisa ku dhacasaynaa 7 wiil buu naga dilay hadda kahor cabdinaash ku meesha ku dilay oo meedkooda la yahay ayadaa ugu aragnaa meedkiisana la arki maayo waa gumaynaa markaan dilna meedkiisa